degmooyinka gobolka Banaadir ayaa daahfurmay 24 bishii Agost waxaana lagu wadaa in la soo gabagabeeyo 24 bishan ee ku jirnay ee September waliba habeenimo Isniin ah waxaana lagu balansan yahay in lagu ciyaaro garoonka Konis Stadium labada degmood ee finalka wada jooga waa degmooyinka Shibis iyo sidoo kale waa bari ayaa noqonaysa markii labaad oo xiriir ah in ay habeen deesho tartanka degmooyinka gobolka Banaadir waxa xusud mudan tartankan in la ciyaaro kulamo kale oo xiiso badan waliba waxa aad loo hadal hayaa kulankii u dhaxeeyay degmooyinka Hodan iyo sidoo kale waa bari Hodan ayaa sanadii 2017 ahayd degmadii finalka la tilid xilli habeenahan la ciyaartay degmada waa bari isla tartankan gudihiisa inta lagu guda jiro wareegiisa sama finalka ama afar dhamaadka ayay waa bari ku soo ciribtay tartanka finalkana sidaas ay ku timid waxa guusha tartankan aad looga mahad celinayaa maamulka gobolka Banaadir oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yariisow tartankii ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir oo si xiiso leh u socda waxaan aad ugu mahad celinayaa shacabka gobolka Banaadir iyo dhalinyarada oo runtii si hagar la'aan ciyaaraha uga soo qayb galay muujiyana caasimadda inay sideedii hore ku soo laabatay barnaamijka ahayd farxadaas anagoo la qaybsanayna dhalinyarada iyo bahda isboortigaba waxaan rajaynayaa in dhammaan degmooyinkana ay soo bandhigi doonaan ciyaar qurux badan halkaana ay ka soo dhaxbixi doonaan ciyaartooydii u matali lahayd gobolka iyo qarankaba magaalada Muqdishona waa magaalo weligeed lagu yaqaanay inay tahay magaalo isboorti magaalo dhalinyaro magaalo isdhexgal bulsho magaalo runtii halbowle iyo u ah wadnaba ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dhammaan bahda xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda iyo gobolkaba oo wiish noo joogo dhammaantoodba howlaha ay hayaan waa howlo muhiim ah dhalinyarada iyo shacabkana waxaan rajaynayaa in lagu garab galo ciyaaraha ka soo qayb galo isla markaana caalamka la tuso siday Muqdisho horumarka u samaysay iyo siday Muqdisho uga go'an tahay inay sideedii hore barnaamij ku soo noqoto mar kale aad iyo aad kaga mahad celinaa dhammaantiin sidoo kale bahda saxaafadda oo la'aantood aysan suurtagal ahayn in ciyaarahan la soo bandhigo loo bandhigo caalamka iyo adduunka marka idinkana aad kaga mahad celinaa ciyaaruhu waa isdhexgalka bulshada haddaba daawade waxaan ku sheegaynaa tartanka finalkiinu ka dhici doona garoonka Konis Stadium yuusan ku dhaafin daawashadiisa habeenka Isniinta ah 24 bisha September